بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد waxaan rabaa wax yar inaan ka hadlo doorashada Soomaaliya ee halganka xooggan loogu jiro iminka gaar ahaan aqalka sare. Soomaaliya doorashada markii laga hadlo ama aan ka hadlayno waxaan ognahay in lacag kala duwan cid walba ay doonayso inay soo baxdo, taasoo ama haddii noqoto odayaal ama maamul goboleed walba uu hardan ugu jiro sidii dhankiisa uu usoo xolan lahaa xubnihii markaa ku matali lahaa aqalka sare. musuqmaasuqa Soomaaliya hareeyay aad buu u baahsan yahay. waxaan rabnaa marka inaan ka hadlo wax yar sahmeynta ay leedahay waxa la yiraahdo lacagta. mar la weydiiyey ra'iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska soo maray 1940kii ilaa 45kii, ra'iisul wasaaraha soo noqday ra'iisul wasaare laba mar soo maamulay dalka Ingiriiska sanadihii 1940kii ilaa 45kii oo mar labaad haddana dib loo doortay 1950kii ilaa 1955kii. ra'iisul wasaaraha isaga iyo tagsiile qisa dhex martay aan rabo waxay inaan ka dhaho. ra'iisul wasaaraha ayaa maalmaha kamid ah wuxuu doonayay inuu interview siiyo idaacadda BBC-da. tagsiile ayuu soo raacay. tagsiga markuu soo raacay ayaa tagsiilihii isaga qisa yar oo qurux badan dhex martay. qisada rabo inaan la wadaago marka. ra'iisul wasaaraha ayaa wuxuu yiri maalmaha kamid ah ayaan tagsi soo raacay. ninkii tagsi uu kaxeynayay ayaa waxaan ku dhahay isug markuu keenay xaruntii BBC-da laga galayay ayaa waxaan ku dhahay yiri isug wax yar waxaan ilaa aan kaaga imaado. tagsiilihii ayaa wuxuu ku dhahay kuma sugi kari maxaa yeelay waxaa qasab ugu ah inaan guriga aado, waan ka cudur daarnay inaan ku sugo guriga inaan aadaan rabaa oo aan dhageysto Winston Churchill wareysigiisa ama khudbadiisa uu siinayo BBC-da oo saacadaas ku beegan ayaan doonayaa inaan dhageysto, saas daraadeed kuma sugi karo iga raali noqdo. marka wuxuu yiri ra'iisul wasaarihii anigoo ku farxay ninkan sugitaanka khudbadeeda uu sugayay awgeed aan ku farxay ayaa waxaan sameeyay yiri meeshii aan 5 pound ka siin lahaa ayaa waxaan siiyay yiri 20 pound. 20kii pound markaan siiyay anigoo u sheegin qofkaan ahay. markii aan sii deganayay ayaa wuxuu ugu yiri 4 saacadood xataa waan ku sugi karaa, waan ku sugayaa, aadaan u mahadsantahay lacagta badan aad siisay. waxaan leeyahay go to hell Winston Churchill, naarta ha aado, ma doonayo warkiisa, waan ku sugayaa ilaa 4 saacadood inta kasoo noqotid. taa waxay ku cadeynaysaa sahmeynta ay leedahay waxa la yiraahdo lacagta. saad ogtahay wadamo ayaa lagu kala iibsadaa lacag darteeda ayaa famil ku burburaan, lacago badan ayay saaxiibada ku kala qaybsamaan haddii meesha lacag soo gasho. imisay sharaf iyo qiimo qof u lahaa lacag darteed lagu iibsanayaa. marka waxaan rabaa inaan weydiiyo aqalka sare, maamulada dhammaan Soomaaliya, baarlamaanka Soomaaliya, ilaa imise ayuu qofka doonaya inuu qiimkiisa iyo qiimihii iyo sharafta u lahaa inuu iibsado. waa mahadsantihiin.